sida macnaha ay u qosqoslaayeen macnaha qosqosolka iyo maaragtay ayagu waxayba ka dhiganayaan macnaha maaday ka dhiganayaan ولا برك على شريف كذا جالك كوفر برقة كوفر كل ما إلى لو دور الجولات بكتر سد وزير كذا الله نحرسته horta wiilka mid kale ma jiro والله يا حتى ما سنتك كوفر جوكتو حلقة ما قبضنا ما دام أسرت كواجك تلقى أنا محاول شكت هذا حريتك وش شيء ريال كان علوس كودا دقمدا عبود واقع قبل كجدو حاسك حالد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هل كان مدس ومقلين مركا ما أنتي وحي سوقلي وأرن إيدي بترنتي أرن تاسو warbaahinta Soomaaliyeed iyo heerka ay taagan tahay maanta waxaan leenahay horta warbaahin badan oo ka badan tii waagii waddanku maaragtay nabadda ahaa waddanka ka jirtay warbaahintaas tayay lahayd laakiin midaanu wax tayaa ma laha inta badan waxaa dhacda in oo aniga aad ii dhibay runtii in wariyaashu aad qaladaad badan ay galaan oo qaladaadkoodaasna aysan waxba ka dhiganin oo hore isaga sii socdaan anigu horta waxaan aad u jeclahay inaan dhagaysto wararka waddankii maalin walba ugu yaraan 3 jeer inaan dhagaysto 3 gelin subaxii duhurkii iyo habeenkii wixii ka soo kordha waxaan marka aad u dhagaysan jiray raadiyaha la yiraahdo radio kulmiye ama KNN dhagaysigeedu macnaha waa jeclaa aadan u jeclaa waxaan ku jeclaa waxay ahayd wararkooda dhexdhexaadka ah intaasaan ku jeclaa wararka dhexdhexaadka ay soo gudbiyaan aan ku jeclaa raadiyihii marka waxaa dhacday anigu waxaan ka dhegeysan jiray marka YouTube-kan aan maaragtay ka fiirsan jiray kelibada ay soo geliyaan ama ka dhegeysan jiray warkooda marka dhowr jeeran waxaan aan maqalnay in uu noqday number 1 oo loo hambaliyey markii hore qaladaadkoodu xoogaasaa uma badnayn laakiin markii dambe oo dhowr jeer la faaniyey waxay keeneen inay qaladaad aad u fara badan galaan oo wax xil ah aysan iska saarinba dadka dhagaysanaya usawiriyuhu xataa aan isleeyahay maba ogaba qaladka uu galay ma oga hore isaga sii soconaa macnaha mideeda kale waxay soo gudbinayeen wax la soo duubay warka markii la soo duubo waa in dib inta loo jeegareeyo la fiiriyo meelaha ka qaldan laga bixiyo la soxo si dadka ayagoo maaragtay wixii fahmi karaa loogu soo gudbiyo ma dhicin taas waxaa waaye
xilba iskama saaranba. waxaan arkayay oo idin tusi doonaa maray qaladaadkooda sheegayeen sida macnaha ay u qosqoslaayeen, macnaha qosqosolka iyo maaragtay ayagu waxayba ka dhiganayaan macnaha maaday ka dhiganayaan, laakiin dadka dhagaysanaya inta badan wax lagu qoslo maaha. waxaa loo baahnaa in qaladka qofka markuu galo in laga waaniyo maahan, in loo qoslo maahayn. tii arkeen wariyaashii waxba xilba iskama saarinba inay maaragtay warkoodaas saxaan. waxaan idin keeni doonaa haddii alla idmo qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda kulmiye hafashada ka dhacday. qalad ma dhahayno, hafashada waa hafasho. qalad wax weyn inta la galay oo la saxay waa. markaan waxaan carabkaa dafay waxaa loo baahnaa carab jilqin aan bay u baahnaayeen baa islaana in lagu celiyo marka lagu celiyo. halkan waa kulmiye ku soo dhawaada baryasamo qaybtiisa koowaad. waa 18 bisha Diseembar sanadkuna waa 2026. qodobada baryasamo saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah Muqdisho garoonkeedu waa xiran yahay. afar 2026 qaabku u imaado in shiga waxaa socday xilligan koobkii adduunka socday waxaana la qabanayay 4 sano mar la qabtaa. qorsheeyay wuxuu ahaa marka maya maadaama koobkii adduunka u dhamaaday habeenkii ciyaarta finaalka la ciyaaray in koobkan koobkiisa xiga la ciyaari doona 2026 tiyaan idoo saf garsan marka. laakiin isdhahay wax kale oo saan ugeena macna ka dhacay inkastoo aan ogeyn xitaa goorta aan dhahay. marka la ku soo dhawaada barnaamijka baryasamo taariikhdu waa 23 bisha January sanadkuna waa 2020 sheekayada la socodsiinaya. محمد محمد dhammaan maxaabiista aan sida sharciga ah u xirnayn Bentaniyuna Kenyahu ninkaas horta magaciisa aad uu adag yahay oo igu adkaaday aad iyo aad. koonfurta iyo bariga xaas u keentay koonfur bari inay eedan jirto. koonfur bari xataa ma jirto ma koonfur bari waa jirka jaha laakiin koonfurta bariga maxaa haliga dambe Cabdiraxmaan Gacalow magaalada Muqdisho xalay kooxaha hubeysan waxa ay ku dileen wasiir doolihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Galmudug Farxiye Cabdi Maxamed. wasiir doolaha wasaaradda gaadiidka hawada waxay ka mid ahayd golihii wasiirada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed 5 bishii Diseembar sanadkii hore uu magacaabay. koonfur galbeed laba dowlad goboleed bay ka tirsaday wasiirka Allah naxariiste. horta wili ma fahmin ayuu celi hor sheegay meesha koonfur galbeed waa qoorqoor madaxweynaha Galmudug golihii wasiirada oo 5 Diseembar sanadkii tagay dhamaadkiisa uu magacaabay ka mid ahayd. marka marxuumad waxa ka dhigta Allah naxariiste inay Galmudug wasiir ka ahayd koonfur galbeed wasiir ka ahayd. marka kulli baryasamo oo ahayd subax horena waa ahayd qawna iska jiri marka hadiyad haye qalad kale ma jira mislaadahay gacalo ma kaasoo ku qaldamay marka mid kale ma jiro. wallahi maadaama sanadkii kuwaad joogto hal qalad ma ku badanayno maadaama sanadkii kuwaad joogto hal qalad maxaa u sheegtay waxa dhigta kugu sheegay mari saasa ku jeclaa waraad dhigta kugu sheegay macna dadka kale waxay ka qaldan ganaxmiga saas warka socday aad ma santahay luuleys fudud waa ku faraxsanahay horta sanad guurida koobaad in isla joogno. waxaan rajaynayaa sanad guuriyaal badan iyo munaasabado badan in isla soo joogi doono. waana kugu soo dhaweynayaa idaacadda. waa dhawahay Maryane waa mahadsan tahay laakiin meelaha qalad iga soo qadqadto qalad boojayna meelaha iga keento waxaan baahay Shariif Sheekh Aadan Madoobe uu sheegay inuu baaqday sabab la xiriirta kooram la'aan taasoo ka dhigan inay buusmi weysay amaba inay buuxsami weysay tiradii loogu talagalay. أنا كسر فشري فيها هل مرة مقشي
ciidamada dowladda ayaa baaritaan culus ka wada degmada Caabud Waaq ee gobolka Gadow maxaan googa adaa lagu diyaa adaa dhaway amaa dhahay hasku hadlin haddii ka mid kale waxaa ka wadaa anaa ku sheegay ceel waaqa ka wadano iyo dowladda Ruushka iyo Bakistaan oo qorsheynaya inay la wareegaan kooxda Taliban waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan oo idiin soo gudbin doonaa shaqaaqa ka dhalatay askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dil u geysatay qaar ka mid ah warshadaha caafi oo ku taala jidka warshadaha bal aan dhegaysanno markana Beijing ayaa sheegtay in Mr. Xi uga digtay in Biden uu hogaamiyo mabaadi'da Shiinaha ee hal dal isagoo uga digay in qofkiiba maxaan ku raahdaa khasaaraha weerarka ka dhashay dadka ku dhaawacmay waxaa ku jira dad isku qoysa sidoo kale weli waxaa la leeyahay dad raq iyo ruux halkii ay dhigeen oo eheladooda ay ka baadigoobayaan qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho Muuse Macalin Yuusuf horta laba qalaa ku jirta raq iyo ruux waa la isbitaal waa laga baaday Shaafic Shariif Maxamuud dhammaan wasiirada xukuumadda dan qaran waxaa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ugu horeyntii ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Sahal Jaamac ayaa sharaxay muhiimadda maxaa ka fahamtay wasaare magaciisa waa qaldan waa la qalday haa Sahal Jaamac Saalax xalaqada Saalax xalaqada markaas Sahal u sheegay aad wuxuu dhahay Saalax Jaamac isagoo uu yahay ra'iisul ku-xigeen sida saxda ah Saalax waa laakiin Sahal Jaamac نمرون في سومالي جود أقلدن في سومالي جود هذا اللي تعرنتي إن قنادات كودا هذا اللي تعمل وعلقيها بعد ترمر كشيء جايان إن يكون كهر مريان مليون أو حلا يابله مليون كهرية مركزه يكون كحجة ayagu milyan waxay horeysiinayaan kunkii anaa intusi doono taasina kooxaha qaramada midoobay ayaa kormeeray oo diiwaan geliyey hubka iyo rasaasta ay dowladda Soomaaliya si rasmi ah u soo dejisay tan iyo markii qayb ka mid ah laga qaaday cunaqabataynta hubka sanadkii 2013 wadamada hubka soo diraya waxay u baahan yihiin inay ogeysiiyaan qaramada midoobay oo ay ogolaadaan shixnadahaasi Soomaaliya waxay heshay ilaa 27,000 milyan oo rasaas ah oo ay ku jiraan ilaa 70,000 oo RPG 70 sanadkii 2013 marka loo eego qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay tirsigiisu yahay 2607 2021 cunaqay si ay u helaan hub iyo rasaas Turkiga ayaa si isdaba joog ah u calaamadeeyay qaramada midoobay sanadihii u dambeeyay ee ku xadgudubka hubka ee Soomaaliya shirkad dhinaca badda ah oo fadhigeedu yahay dalka Turkiga ayaa bishii Abriil sanadii 2021 soo gaarsiisay Soomaaliya gaadiid dagaal iyadoo aan la ogeysiin UN-ka sida ay u hoggaansameen shuruudaha cunaqabataynta taasoo keentay in baarayaasha qaramada midoobay ay bilaabaan baaritaanka shixnadaha sida laga soo xigtay sirta ay heleen khubrada qaramada midoobay Istanbul Logistic ayaa 44 baabuur oo nuuca Kamas ka soo dejisay degada magaalada Muqdisho 30 Abriil sanadkii 2021 oo uu ka sharaacday kanaalka Suez si uu ugu xiro jidda Sacuudi Carabiya kahor inta aanu ku xiran Muqdisho qaramada midoobay ayaa sheegtay inaysan jirin wax ogeysiis ah oo ka yimid shirkadda iyo dowladda Turkiga oo ku saabsan shixnadaha guddiga waxay warqad rasmi ah u direen Istanbul bishii Juun ee 2021
iyagoo weydiisanaya macluumaadka ku saabsan keenista si loo go'aamiyo haddii ay u hoggaansan tahay shuruudaha cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay. marka arrintu markii saas u dhacday dhowr jeer anigu waxaan u qoray commentiyo xataa commentiga xataa ma kala jeclaa dadka feedbackooda maaragtay ma kala jecla waxba iskama saarin marka waxaa la yidhi waa raydaa rag waa uga dartaa dumarna reerkay ka saartaa saas markay dhacdo anigu waxaan is yidhi waxaaba intaan warka dhegaysanayo anigu waxaan ku mashquulaaba inta maaragtay qofku warku uu sheegayo aan ku mashquulaa macnaha marka warkiiba meeluu iga maray ma aqaano waxaan kusii mashquul kaal qofkaas saasuu yidhi see wariyuhu saasuu yidhi see maaragtay waxaas ku dhacday inta kaleu sheega waabay dhaafaysaa sababtoo ah warbaahintu waxa waaye inaan wariyahana lagu mashquulin waxa uu leeyahayna aan lagu mashquulin hadalka uu leeyahay inaan lagu mashquulin dadku dhegaystaan bis laakiin hadalkii uu lahaa haddii asaga uu warkii noqdo oo asagii ma arkin oo ii sheeg mar walba ay dadkii fiirinayaan qaladaadkiisa waxyaabaha uu samaynayo xaddhaafka ah waa arrin la yaab leh oo qofku warkiiba kaa dhaadhici maayo anigu koley saasaan u aqaanaa wariyaal waxaan aqaanaa runtii wariyaashii hore waxay samayn jireen haddii ay qufacaan xataa dadka raalli ah oo dhihi jireen iska dhaaf qalad iyo wax ay galaan oo hore uga sii gudbaan marka waa dhagay ka furaysteen adiga waxaa waaye qofka haduusan dadka feedbackiisa uusan fiirinayn waa arrin la yaab leh runtii warbaahintii marka Soomaaliya markaan isbarbar dhigay kadib waxaan dhageystay anigu iska dhaafartay inaan dhageysto maaragtay keenan iyo warbaahintooda inaan dhageysto sababahaas aan soo sheegay awgeed warbaahinta kale markaan fiiriyey warbaahinta kale boqolkiiba boqol waa ka fiican yihiin runtii daan isbarbar dhigo SNTV Universal warbaahinno kale oo maaragtay aan dhageystay kulligood qaladaadkoodu ma badna inkastoo af Soomaaligii weli oo maaragtay meesha u dhib ka haysto oo xataa aysan wariyaashu aqoonin xarfaha labalaabna adduunka wax ceeb ah runtii wariye maaragtay luqaddiisii aan aqoonin oo luqaddiisii naxwaheedii iyo sida u dhawaaqday iyo aan aqoonin oo haddana wariye laga dhigo adduunka waa waxyaabo dhici kara maaha qofku waa in meel walba laga soo dhiso waay ila qofkan hadal u gudbinaa mogta waryuhu waa isha keliya oo u dhaxeeya dadweynaha iyo dowladaha meesha wararka laga helo wararka caalamka laga helo dadku waa meesha ay ma arkin oo isku halleeyaan inta badan marka waxaa noo muuqatay inay meeshaanu maaragtay wax helaan la iska saarin waxaan kaloo dhegeysan jiray BBC waayadii hore waxaa igu dambeysay markii nimankii ay ka tageen maaragtay sheeg waaweynaa oo wariyaasha caanka ahaa oo yaqaanay sida wax loo gudbiyo kadib waxaan is balfiiri oo iska dhageysay balfiiri dadkan yimid waxay yihiin dad waxaan arkay ku gabyaaya runtii waxay rabaan inay geeraar ka dhigaan warkii waxay ka ilaalinayaan deelqaafkana waxaa la yidhaahdaa marka la rabo in la geeraaro ama la gabyo ama hees la tiriyo xaraf markuu ku socdo macnaha inuusan qofku xaraf kala keenin asoo da' ku socda oo geeraarkii ama gabaygii ama
heestii ay da' ku socoto haddaad ma keento ama na keento oo erey na ka bilowda ama ma ka bilowda may soo geliso waa deelqaaf waxaa deelqaafka la yidhahdo taas runtii waxaan kaloo fiirsanayay filimkan hadda lagu kacsan yahay oo la yidhaahdo arday macallin u sharaxaya gabay maaragtay qaybta labaad uu filimka u sharaxaya ardaydii waxa deelqaaf la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay deelqaafku waa waxa xun oo gabayga la geliyo kulaha oo iyo geeraarka iyo waxyaabaha aan fiicnayn oo maaragtay caayda iyo waxaas deelqaaf la yidhahdo marka soomaalida dhibkaasaa runta haystaa luqadii horta hore marka ugu horeysa waa laga dhintay dadkii waddanka joogay oo la rabay luqadda maaragtay inay ay yaqaanaan oo maaragtay oo maaragtay ka maaragtay aqoon badiyaan dadka dibadda jooga ayagiyaa ugu liita runtii ma aqaanano wax sababay waxbarashadii sidoo kale waxbarasho ma jirto oo halkaas inay ka timid aan u malaynaa waxbarashada laftigeedii aad iska liidato qof waxaa arkaysaa ku dhahaya professor aan ahay ama waxaan haystaa bachelor ama master oo haddana wixii uu soo bartaan aqoonin waxaan dhegeysanaya barnaamij weydiimo la yidhaah oo maaragtay dhallinyaradu ay yimaadaan oo ninka qofka markuu ismaaragtay oo isbaraayo dadka wuxuu isku baraa inuu yahay qof mutacalima oo qaarkood PhD ay haystaan midaa marka wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey wuxuu yidhi waxaan ahay civil engineering markaase su-aal waxaa laga weydiiyey magaalada muqdisho ku saabsan degmada cabdicasiis markaasuu garan waayey su-aal dhulka kamid dhul macnaha sida macnaha maabka ah marka anigu waxaan is idhi ninkaas maadaama uu civil engineering yahay civil engineeringka waxaa waaye dadka magaalooyinka dhisa soo barta sida magaalooyinka loo naqshadeeyo loo dhiso ninkaas marka intuu dhisi rabaa macnaha hadduusan magaalada muqdisho uusan maabkeeda aqoonin iyo intii u qaybsantay inta degmay u qaybsantay marka aqoonta halkaasaa laga taagan yahay runtii waxaa waaye dadkii dad badan wax bartay laakiin waxbarashadii oo waxbarasho waxay noqotay iska gudbisa sidaa markii aan maaragtay u dhabagalayna sidii aan maqlay waxaa waaye in waxbarashadii ay noqotay lacagtina qofkaanu in layska gudbiyo keliya ay arrinta ku ekaato aan qofka galaaska lagu soo celinin hadduusan aqoonin wixii oo layska gudbiyo halkan waa ka gudbay saasuu shahaado ku qaato isagoon aqoonin wixii uu soo maro dhan oo markaas maado ku takhasuso maadadii laftigeedii macallinka u dhigaya macallin tababaran maaha oo macallinka inkastoo qofku wax soo bartay haddana macallimiinta waxaa loo baahan yahay in tababar gooniya la siiyo macallinimo sababtoo habka wax loo gudbiyo macallinimada waa hab waxaa waaye gooniya waaye oo ma arkino oo qofka wax soo bartay caadiga uu soo bartay uusan samayn karin hab wax loo gudbiyaa jiro dadka wax loo baro taasaan marka meesha ka maqansaan isleeyahay marka waddankii dhibaato weynaa ka jirta wallahi aniga laakiin hadda midda aan maanta meeshan usoo galay waa warbaahinta iyo isbarbardhigeeda macnaha kuwana maxay ku fiican yihiin horta gaal dil waxaa la gartiisana siiye war soo gudbinta aad mar walba warka helayso keyna waa ku fiicanta haddii la rabo laakiin dhib ka taagan warkii aadan garanayn waxa ay sheegayeen ma garanaysid waxaa waaye su-aalo badan aad iska weydiinaya intaad warka dhegeysan lahayd adoo warka dhegeysanaya macnaha marka waxaan arkayay iyagoo markay qaladaadka sheegayeen iyagoo ku eedeynaya kan farsamo yaqaanka iyo adiga laftigaada wariyihii aad tahay waxay waa aqrinaya soo maa waxaa marka hore iska aqri intaadan soo fadhiisanin meesha mideeda kale cilada kale oo aan ku arkay waxaa waaye raadiyo marka adduunka laga hadlaayo
qofku waa inuu dhagaha wax ugu jiraan oo headphone ugu jira dhagaha headphonekaasoo macnihiisu uu yahay hadalka uu sheegayo xataa si u dhawaaqayo inuu qofku u maqlo isaga hadalkiisa inuu ismaqlo si dadka macnaha maarti u maqlaayaan taasna ma leh mikrofon kaliya la soo agdhigaa bis qofka ma oga waxa uu sheegayo waa waxaan arki jiray wixii la dhihi jiray baltog oo kale maarta baltog markaa ku hadlayso waagii hore dadkii baltog joogi jiray xilligiis markaa ku hadlayso ismaqli maysid dadkaa ku maqlaaya lagaadima ismaqlaysid marka waxa aduu sheegtay maba garan kartid ba runtii waa ku wareereysaa ilaa wuxuu hadal wax kugu soo noqonaa maaha moogta marka hadalkaas kugu soo noqonayo waxa uu kaa caawinayaa wixii aad sheegtay inay saxnaayeen iyo inay qaldanaayeen inaad ogaato taasna laguma hayo oo ma aqaano meeshay arrintaas ka timid laakiin weli raadiyo samaynaa inuu ma runtii iskaas bisaan ku arkay raadiyo Soomaaliya raadiyaas kale inay sameeyaan waa laakiin oo Soomaaliya ku jira laakiin kuwaas ma arka mana dhageysto anu meesha kaliya kala socdo wadankii ma joogo waxa meesha kaliya kala socdo waa YouTube intay soo geliyaan marka at least YouTube ku hal rabay inay wixii oo maaragtay ay soo fiiriyeen marka video duubayso oo YouTube ka gelinayso ama war gelinayso hadalkaagu waa inaad meel walba ka fiiriso qaladaadka oo dhan markaa ka fiiriso wixii oo qalad aad ka saarto waxaa loo baahan markaas inaad maaragtay post garayso oo video aad geliso YouTube marka ayagoo soo gelinaya YouTube ee haddana soo saxaynin kaaga daran waa midda waxa waaye qaladaadkaagu hadday bataan even YouTube channelkaaga waxa waaye xasaas ma keenayo runtii sababtoo waxa waaye waa dadkii qaladaadkii maaragtay aysan u adkeysan karin waxa qaldan qof raba male qofku wuxuu raadsanaya meelo saxan oo markaas maaragtay isag ku maaragtay taada u bedesha marka warbaahinta hoose looga dhintay inkastoo anigu hadda aan meesha aan ka hadlayo ugu badan ay tahay KNN aniga intii kaloon arkay waana dhalinyaro badan oo isku meel ku wada dhashay kolley oo waxaa sheegaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed hadalkoodu ma ila qaldanayn mar waa laga yaabaa inay xarfaha laabma inay gara waayaan oo ereygii hadda marka la yiraahdo caro marka la yiraahdo iyo marka la yiraahdo carro labay kala yihiin maxaa kala bedelay xarfihiin laabmay ra'diya laba jeer dhawaaqaysa markii carro la yiraahdo carradu maxay tahay waa ciidda dhulka taalo laakiin caro marka tiraahdo adoo carro ula jeeda caro waxay noqonaysaa xanaaq afan soma marka fiiri labadii eray sidii macnahooda u kala bedelmayo maxaa kala bedelaya xarfihii laabmay kala bedelaya xarfihii laabmay hadda meesha ku jirin labadaas eray maba la kala garteenba midna waa xanaaq midna waa ciiddii dhulka taalay marka waxaasoo dhan in layska saxo maaragtay aad u wanaagsan af Soomaaligana aad loogu dadaalo maadaama aad wariye tahay oo saxafi aad tahay inta badan waxaan anigu hadda aan maqlay inay shahaado saxafinimo haystaan ma aqaan waxa soo tababaray sababtoo saxafigu number 1 waxaa u ah xushmadda dadka dhageysanaya inuu tixgeliyo taasaa waxay u tahay muxuu ahaa number 1 haddii taas la waayo hadda dadkii hadalkuu sheegayo qofkan maba qiimeynayaanba hadalkaaga qiimihiisu wuxuu ku xiran yahay dadkaas inaad qiimeyso saxaafaddana waxaa lagu soo bartaa number 1 taas midda ugu horeysa waayo waxaa la diidaa waxaa waaye in hadalkaagaas lagu mashquulo hadalkaaga in lagu mashquulaa la diidaa
sababtoo ah warkii ma la dhegeysan karo qofku warka hadalka meeluu ka mara ma yaqaan hadduusan adigu kugu mashquulo saa u leedahay dharkaaga waxaasna lagu mashquulo lama rabo haddaa daacta wariye TV ah tahay in adiga lagugu mashquulo no waxaa loo baahan yahay qofku hadalkaagas inuu noqdo marka saxaafadtaasaa ugu horreyso laga soo bartaa marka ma aqaano anigu xaaladdan saytaa ka odhi bal waxaan leeyahay ilaahay maaragtay soomaali how gargaaro waxaa waaye luq afkii waa dhumi rabaa waxaa dhumi raba muxuu ahaa ii sheeg wixii maaragtay dadka lagu madadaalinayay heesihii sidoo kale muxuu ahaa fanaan qof walba fanaanu iska noqday wuxuu raba iska sheegaa qaarkoodaan aqoonin muxuu ahaa ii sheegeen heesta ay qaadayaan macnaheeda aan aqoonin marka dhibaatooyinka badan oo laga dhaxlay maaragtay dhibaatada waddanka ka jirta ay ka mid tahay marka waxaan kusoo gabagabaynaa in maaragtay bal sida laysku dhaamo laysa saxo annagu haddaan nahay daawadayaal ama dhegaystayaal waxaan idiin daawanayno ama idiin dhegaysanayno waxaa waaye inaan war idinka helno haddii warkaas laydinka helay aadsan waxba maaragtay aadan ka dhiganaynin oo waxaa rabti inaad sheegaysiin oodan qaladaad ka soo noqonaynin dee ma aqaan sida laydin dhegaysanayo marka intaasaan rabay inaan maanta ka hadlo